جالية سومالية كنا مقالة لندن مدحدة أهل السنة والجماعة وأكون هاتسين سودوينتا هدان صلاة السؤال هذه صورت أول عن هلك الأنميت بحوي أهل السنة والجماعة سيدة دكتين ده ودن كان جريه سهول بدن بكخواتي سيدة السنة والصوت عطي مستر لبقرة قدومي هراء أوركا لبحي أهل السنة والجماعة يكدق على مقابلة دحي وباق عن هادسة أدري تصوف كيني يحرتيني ومعنا بالان سوماليا وحبوات كتري ويسين دعوانا كما ودان ganacsiina kuma jirtaan siyaasadna kuma jirtaan meel aad ku jirtaan malaha marka ma garawsanaysaan miya isaga soo taga meesha xagu ugu yeeray oo meesha ugu yeeray waa xagee dhageyso soo raac madhabta ahlulbeedka soo raac taasaa la qaatay ahlulbeedka soo raaca nakeena oo ahlulbeedka soo raaca ahlulbeed waa ayo haddaad maqasho ahlulbeed waxaa iskugu yeero shiicada waa magaca ay iyagu iskugu yeeraan ugu jecel yihiin bal goolmay eeraantii dabka laga dulkiciyay ee majuusta ahayd ahlulbeed noqotay anu waxaan ku yeeraa kulligiin saad ku tihiin suufiyo isku sheeg suufiyaruna ma ayidin dad suufiyo fiican tihiin waad soo marad soo garawsan lahaydeen suufiyo isku sheeg oo dhan waxaanu kula talinahaa inaad madhabta ahlulbeed ka raacdin ilaa madhab ama wahaabiyo ama ahlulbeed un baa idin haray ma la hadlay muxuu sayir aad baan uga hadli lahaa arintooda nimankan waxa weeye laf cad bay toobin ku hayaan 100 jeer baan la hadlay waa suufiye isku sheeg suufiye dhab haday yihiin madhabta ahlulbeedkay soo raaci lahaa maxaa yeelay suufiyada dhabta waxay ka bilaabatay oo ka soo askuntay markeedii hore madhabta ahlulbeedkay ka soo askuntay oo ku dhex dhalatay oo ku soo maartay dhex kortay marka suufiyada dhabta haday runtii suufiye dhab yihiin madhabta ahlulbeedka ay qabsan lahaayeen waad ogtihiin dadka tasawufka noo keenay badankoodu waxa way dad ahlulbeedka u nisba sheegto way hatta Soomaaliya dhexdeeda ashraaf way laakiin kuwani suufiyana ma aha wahaabiyana ma aha waxay yihiin laba arko meel illa ay taagan marka anigu waa la talshay waxaan ku yiri ama wahaabiyo ku biira waxay dananayd ku sameeyeen iyo takfiir ama madhabta ahlulbeedka ku soo biira oo wadanka ku cusub alxamdulillah hadda soo galaysa oo aan rajeynayno in ay noqoto midii wahaabiye iyo takfiir oo dhan naga shaafin lahayd oo naga kaafin lahayd midda ilaahay uu sharta takfiirka iyo sharta wahaabiyada nooga reebi lahaa waa madhabtaas ahlulbeedka oo qabow oo naxariista wadata oo diinkii saxiixa dadka ugu yeeraysa insha Allah la hawla wala quwwata illa billah Suuriya ma arag Ciraaq ma arag Yemen ma arag dhibaatada ay ku sameeyaan Bahrain iyo dhibaatada ay ku sameeyaan meel kasta ku xoog bataan uma jeedo marka anigu waa u sheegay nin wax yaqaanana kuma jiro kulligood waxa way waa dad aan waxba ogeyn way anaa ku sheegayaba anaa ku jiray anna waa ka soo baxay markaan macna la'aantooda arkay marka iyaga ay u taalaa haday aqli leeyihiin kullayba waa u jeedaan xaaladdu say tahay meesha tan waxa isku haysta laba madhabadood madhabta ahlulbeedku hadda xoog leh alxamdulillah iyo wahaabiyo sii dhacaysa calankeedu sii dhacayo marka faras gaabiya weliga laguma sharatamo mustaqbalka Soomaaliya madhabta ahlulbeedka leh iga qora intaas aniga mustaqbalka Soomaaliya madhabta ahlulbeedka leh wahaabiyana waa dhacay dhawaan waaba dhacdayba hadda waxa yaala wax jira ma aha waa waxyaabo isaga dhigan maartay taxob isaga dhigan oo cidi ogeyn oo xataa Sacuudi Carabiya dhexdeedii ka dhacday oo carabtay ka dhacday meeshii asalkeedii ka timid baa laga dabar gooyay suufiyana awalba wax jira ma ahayn aysan ahayn marka haday rabto inay sii jirto madhabta ahlulbeedka ku soo biiraysa hadaysa ku soo biirina iyaduna dabar gooyaysa la hawla wala quwwata illa billah تصريح iyo cadayn ka weyn ma jirtaa ahlu sunna wuu baaba'ay shiica soo raaca hadalka ugu dambeeyay waka ninka la dhihi jiray laba garre oo ah gudoomiyihii ururka sheegta ahlu sunna ee ka dagaalamo gobolada dhexe